Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabaneynaa cashirkeenii 24aad. Waxaan soo qaadanay 23 cashar oo kuna saabsanaa Basic Computer Skills. Foundationka qeybaha hoose ee computerka ayaan kasoo bilaabnay. Marka qof walbo oo bilow ah wuu la qabsan karaa course-kan hadduu kasoo bilaabo number 1. Cashirka koowaad hadduu kasoo bilaabo wuu la qabsan karaa. Laakiin haddii videoga u dambeeyo kale ama videoga dhexe aad fiirsato waxba micno ah kuma sameynaayo. Waxaa u baahan tahay in casharadii dhan aad soo wada qaadato. Kumana xirna inaadan computer waxba ka aqoonin. Haddii aadan computer waxba ka aqoonin xataa waa ka faa'iideysan kartaa. Casharadan waxaan dhahnay totally free waaye. Qof walba ayuu u furan yahay oo afka Soomaaliga ku hadla. Waxaan kaloo diyaariyey buug. Qofka u baahan buugga wuu iga soo codsan karaa. Muqdisho qofkii joogo $6 waaye. Meel alaala meeshuu ka joogo ayaa loogu geenayaa. Marka waxaa naga heli kartaan buuggeena aan ku leenahay TikTok iyo YouTube-ka xirfad.com computers and technology ayaa hadaad garaacdo naga heli kartaan. Marka casharadeena waa free. Qof walba oo afka Soomaaliga ayuu u furan yahay. Haddii cashirkeena aan u guda galno, cashirka maanta aan qaadanayno waa routers. Waxaan soo qaadanay switch ayaan soo qaadanay cashirka ka horreeyay. Hadda waxaan ku guda jirnaa networking ayaan ku jirnaa. Hore waxaan usoo qaadanay hardware-kii iyo software-kii waa soo qaadanay concept-gii. Haddana waxaan qaadanaynaa network concept ayaan qaadanaynaa. Si guud ayaan network-gii ayaan fahmaynaa. Router-ka waxaa waaye waa device loo isticmaalo in la isugu xiro network-ga si ay isku fahmaan. Marka tusaale diagram ayuuna siiyey, sawir ayuuna siiyey. Marka wuxuu ku leeyahay network-gan fiiri waxaa isugu xiran yahay switch. Cashirkii hore aan soo qaadanay waa local area network. Kanna another local area network. Waa laba network oo kala duwan waaye. Marka hadduu rabo qof inta fadhiyo uu rabo inuu la xiriiro qof inta fadhiyo isma fahmayaan because maxaa yeelay network-gan iyo network-gan way kala duwan yihiin. IP address-ka kan uu haysto iyo IP address-ka kan uu haysto way kala duwan yihiin. Marka maxaa dhacayo inay isfahmi waayaan. Marka waxaa loo baahanaa marka router in la helo. Marka cashirkeena anagu ujeedkan u soconno waa router. Router marka wuxuu meesha u fadhiyaa in network-gan iyo network-gan uu isfahansiiyo. Marka qofka inta markuu soo diro data uu rabo qofka inuu la hadlo router ayuu imaanaa. Router wuxuu leeyahay xagee u socotaa network-gee rabtaa network-gan ayaan u baahanahay. Marka wuu gudbinayaa markaas ayuu ninkan qofkan inta joogo ayuu la xiriirayaa. Marka router waxaa waaye laba network oo kala duwan ayuu isfahansiiyaa. Halka switch-ka same network hal network oo is yaqaano ayuu isku xiraa asaga. Laakiin haddii aan switch inta dhigno lama xiriiri karno because switch-ka nooma gudbi karo. Switch-ka waxaa waaye wuxuu isku xiraa same network ayuu isku xiraa oo ayaa lagu xiraa local area network kale ayaa lagu xiraa. Marka laakiin router waxaa waaye route ayuu ku sameynayaayo wuxuu kugu hagaajinayaa network-gan ayuu wuxuu ku hagaajinayaa network kale ayuu ku hagaajinayaa. Marka concept-ga oo router saas u fahan. Router muxuu yahay haddii lagu yiraahdo waa network iyo network kala duwan ayuu isfahansiiyaa ayaa leedahay. Laba network oo kala duwan ayuu isfahansiiyaa. Saas ayaa leedahay. Waana wax la isticmaalo oo caalamka laga isticmaalo oo hadda adiga rabto adoo inta joogo kale oo Muqdisho joogo kale hadaa rabto inaad la xiriirto aad gasho kale TikTok ama YouTube aad gasho maxaa kuu saamaxayo? Waxaa kuu saamaxayo route ayaa la sameeyay. Router-yaal badan ayaa caalamka la dhigay. Ayaga ayaa lagu marsiinayaa. Marka adiga ma fahmi kartid laakiin waa wax jiro oo meel la dhigo dad ay qarash gareeyeen oo kambaniyo waaweyn ay sameeyeen caalamka ayaa wadamo badan ayuu yaalaa router oo la dhigay. Marka router-ooyin waaweyn waaye. Waxaa kaloo jiro adiga router guri ku yaala ayaa jiro oo markaa rabto internet inaad ku xiranto routers ayaad maraysaa oo hormuud oo kale ayaa ku siinayso gurigu ku yaala. Marka adiga ma fahmi kartid laakiin maanta waa baratay. Maxaa aniga hadda network hadaan rabo inaan YouTube-ka galo maxaa ii saamaxayo? Waxaa kuu saamaxayo router ayaa kuu saamaxayo. Marka taas inaad ogaatidna muhiim waaye oo router muxuu qabtaa from network to another network ayuu isfahansiiyaa. Network kala duwan ayuu isfahansiiyaa. Marka router haddaan fiirino cashirka wuxuu ku leeyahay a router is a network device. Waa network device waa shay network oo loogu talagalay that connected multiple networks. Laba network, saddex network, afar network ayuu isku xiraa router. Router halka xabo tusaale ahaan u soo qaadan laakiin waa badan yihiin. Dhowr xabo ayuu noqon karaa.
ومركب wuxuu ku leeyahay traffic from one network wuxuu ku leeyahay traffic ka imaanaya hal network to another network kale aadaya does not always have to travel between the same router marka wuxuu ku leeyahay haddii network uu rabo network kale inuu rabo inuu ku travel gareeyo ama uu aado always wuxuu ku leeyahay does not always uma baahan inta badan inuu ku travel gareeyo ama uu ku socdo between same routers hal router inuu ku socdo oo maaragtay la isticmaalo wuxuu noqon karaa inta router kale inta la dhigo oo maaragtay hadda tusaale ahaan oo kale YouTube oo kale markaa rabtid inaad geshid oo kale adoo inta joogtaa TikTok inaad geshid ama YouTube inaad geshid the best path ayuu qaadanayaa wadada ugu fudud caalamka hadda Hindiya oo kale mid ayaa yaalo kale Nigeria mid ayaa yaalo kale adii midka markaas ku dhow ayaa lagu hagaajinayaa si macnaha meesha ugu dhaqsiyaha badan maaragtay u gaarto oo kugu fudud marka waxaas oo dhan waxay u dhacayaan within second ayay u dhacayaan so marka wuxuu ku leeyahay on the internet for example tusaale ahaan traffic is routing according to the best available path wuxuu macnaha inta badan internetka wuxuu fiiriyaa best available path meesha ugu fudud oo uu ka aadi karo oo wadada ugu fudud uu ka aadi karo at that time waqtigaas uu la isticmaalayo waqtiga meesha ugu fudud uu ku tagi karo ayaa la siinayaa tusaale ahaan oo kale adiga Soomaaliya joogtaa waxaa rabtaa YouTube yaalo kale servahooda America oo kale yaalo wadada kugu fudud ayaa la leeyahay marka wadada best path ayaa lagu siinayaa haddii wada dheer ay jirto oo tusaale ahaan oo kale router inta yaal marka kan tooska ah iyo kan inta inaa aadid oo saas u aadid iyo kan tooska ah kee ku fudud kan tooska ayaa ku fudud marka inta ayaa lagu marsiinaya saas oo ka wada midka ugu fudud wadada ugu fudud ayaa lagu marsiinaya marka wuxuu ku leeyahay triple shoot hadaa aragto waa erey loo isticmaalo terminology oo loo isticmaalo IT ga isticmaalo waa triple shooting waxa waaye waa cilad bixin waaye triple shooting haddii aragto inaa cilad bixiso router is made easier wuxuu maaragtay waxa loo sameeyay si fudud ayaa loo sameeyay by the use of status indicator lights nal ayaa loo sameeyay nalkaas ayaa waxay ku sheegayaan haddii nalka uu maaragtay uusan router uusan shaqaynaynin lightkaas ayaa ku sheegay cagaar waaye haddii marka nalkan oo kale uu ka halaysan yahay oo kale waxa laga yaabaa powerka inuu yahay kale haddii oo waxa laga yaabaa kan oo kale LAN inuu yahay kale local area network oo kale inuusan ku shaqaynin oo kale ayaa laga yaabaa wireless oo kale haddii uusan ku shaqaynin guduud ayuu noqonayaa marka meelaha cagaarka dhan guduud ayuu noqonayaa marka waxay noo cadeynaysaa taas in hadduu guduud yahay uu noo shaqaynaynin laakiin haddii cagaar uu yahay uu noo shaqaynayo marka lightskaas ama nalalkaas waxay noo faa'iideynayaan inaan si fudud u cilad bixino markaan kor tagno router waxaan arkaynaa hadda gurigaaga inuu yaala laga yaabaa fiiri guryaha uu yaala hormuuda ku siisay ama shirkadaha bixiyo oo maaragtay muxuu ahaa router oo marka internet u baahan tahay guriga ayaa la dhigaa waa lagu xiraa fiiri nalal ayaa ka daarmaya haddii marka cilad ay jirto kale wireless ko kale tusaale ahaan oo kale internetka ayaa gali weysay waxaad tegaysaa router haddii nal guduud aad aragto qaybta wireless ko kale that means wireless kan ku shaqeyn kuma xirmi kartid meeshaas guduud ay ka noqonaysaa marka fiiri haddaad guriga ku yaalo fiiri nalalkaas cagaar waa kulligood cagaar waa marka router ayaa isticmaalaysaa guriga ayuu ka yahay marka waxaan baranay maanta router ayaan baranay cashirkeeni maaragtay oo networking ku saabsan router ayaan ku baranay cashirka ka horreeyna waxaan soo qaadanay switch ayaan soo qaadanay marka hadda waxaan galaynaa labka ayaan galaynaa soo marka waxaan ku ogaanaynaa IP addresska aan leeyahay iyo MAC address si casharadii hore aan soo qaadanay waxaa jiro physical address ayaa jiraan dhahnay computer walbo caalamka yaal wuxuu leeyahay dhahnay physical address ayuu leeyahay muxuu ahaa u gooni ah iyo IP address haddii internet uu isticmaalayo seen ku ogaa karnaa meeshaas ayaa waxaa ku qoraysaa CMD ayaa ku qoraysaa command prompt ayaad galaysaa CMD markaas waxaa kan ku soo baxay command prompt meesha ku qoranta ayaa click siinaysaa page-kan madowga ayaa ku furmaayo waxba ha ku dawaqmin waa very simple waaye page-kan kala marka aragtaa nixin waa wax fudud waaye CMD ayaa qoraysaa page-kan ayaa ku soo baxay waxaa ku qoraysaa IP config ayaa qoraysaa config/all ayaa leedahay waxaa qoray meeshaas fiiri IP config/ waraaq ku qor intaas waraaq ku qoro kadib waxaa leedahay enter ayaa leedahay okay
slash muxuu u diidayaa maxaa iga qaldan sidaan ku celshay waxaa leedahay ib config slash all waayo maxaa dhacay ib config slash ib config slash all halkaas wuu noo soo saaray majeedaa marka wuu noo soo saaray ib addresskii waa kanaa marka wuxuu ku leeyahay marka cafwan waxaan qoray hadaaye forward slash ayaan qoraayay marka back slash waaye ib config slash meesha hadda oo haddaan click ku siiyo meeshaas wuxuu ku leeyahay majeedaa cafwan forward slash ayaan qoraayay back slash waaye ujeedaa waxaa waaye ib config back slash all ujeedaa intaas saasaa qoraysaa kadib enter ayaa leedahay so marka wuu kusoo saarayaa ib addresskaaga iyo maaragtay muxuu ahaa mag addresskaaga so marka haddii aan isla fiirino waa kana marka wuxuu ku leeyahay ib version 4 keena maxaa waaye 192.168.56.1 ujeedaa so marka ib addresska aan leenahay computerkeena waa kaasa mag addresskeenana waa kana physical addresskana waa kana physical addresskana waa kaasa marka physical addresskana waa kaas mag ib addresskana waa kaasa kan waa internetka ayaa loo isticmaalaa oo haddaa rabto inaad internet ku xiranto waxaa u baahan tahay ib address haddii aad u baahan computerkana wuxuu leeyahay dhahnay physical address mag address ayuu leeyahay dhahnay oo unique u ah oo asiga keliya la maaragtay isticmaalaya waa kaasa waxaa waaye 0a slash 0027.000 slash dash wuxuu ku leeyahay 10 ujeedaa so marka physical addresska waa kaasa uu leeyahay waa xarfo iyo isku muxuu ahaa number oo u gooni ah waa ujeedaa so marka muxuu ahaa ib addresskana waa kana 192.168.56.1 oo maaragtay oo nala siiyey routerkeen una siiyey waa kaasa DHCP-geena una siiyey waa kaasa marka inaan internet ku xiranno oo ma aan isticmaalno internetka waxaa noo saamaxayo ib addresskaas ayaa noo saamaxayo haddii lacala marka qaar xataa cilad bixinta waa loo isticmaalaa waxaa leedahay ib config slash hadduusan kuu soo bixaynin ib addresskaaga daaminas wax internet ku xirmi kartid oo waxay noo cadaynaysaa internetkii inaana geli karin because ib address ma haysano laakiin numberkan kale oo physical addresska waa unique computerkaaga haddaa geshid computer kale aad fiirisid isku mid ma noqonaya computer walbo mid u gooni ah ayuu leeyahay marka cashirkan intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu